doorashadii madaxweyne xasan sheekh waxaan caawa isugu nimid shirka madasha samata bixinta Soomaaliyeed. magaca shirkan wuxuu ka turjumayaa xaaladda murugsan ee maanta dalkeenu ku sugan yahay iyo waxaan nala gudboon si aan u samata bixinno dadkeena, dalkeena iyo dawladnimadeena Soomaaliyeed. 3 sano iyo 16 maalmood doorashadii madaxweyne xasan sheekh kadib waxaan caawa guud mar ku sameynaynaa fursadihii uu dalku haystay markii madaxweyne xasan sheekh la doortay May 15keedii 2022 iyo sidii uu fursadahaas ula falgalay madaxweyne xasan sheekh. sida aan ku soo saarnay warmurtiyeedka jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya waxa udub dhaxaad u ah dastuur heshiis lagu yahay oo ku qotoma hanaanka federaalka iyo nidaam baarlamaani ah. sidoo kale waxaa siyaasadeena lafdhabar u ah doorasho la isla ogol yahay oo 4 sanaba dhacda mar heer federaal iyo heer dawlad goboleed. awood qaybsi loo dhan yahay iyo wadar ogol mar walba lagu xalliyo khilaafka ka dhaca siyaasadda. madaxweyne xasan sheekh waxaa la doortay iyadoo tiirarkaas oo dhan ay u dhan yihiin dawladnimada Soomaaliya. nasiib darro madaxweynuhu wuxuu burburiyey mabaadi'dii ay Soomaalidu rubac qarni ka hor uga soo heshiiyeen shirkii Carta. madaxweyne xasan sheekh oo ay doorashadiisii ku soo beegantay xilli adag wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay oo si wada jir ah ay u soo dhaweeyeen haldoorka siyaasadeed oo doorashadiisa u arkayay guul wadareed. maadaama dalku ka soo baxayay hubanti la'aan siyaasadeed loona arkayay inuu yahay oday Soomaaliyeed oo isku hayn kara dalka iyo dadka, waxaa nasiib darro ah in madaxweynuhu kala dhantaalay midnimada dalka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. waxaana caawa halkan ku kulansan siyaasiyiintii dalka iyo haldoorkii bulshada si ay u tashadaan masiirka mustaqbalka Soomaaliya. doorashadii madaxweyne xasan sheekh ee May 15kii 2022 waxay ku soo beegantay iyadoo ay isbedello waaweyn ka socdaan gobolka Geeska Afrika. duniduna baadi goobayso hogaamiye hormuud u noqon kara xasiloonida gobolka. waxayna dunidu madaxweyne xasan sheekh u arkaysay hogaamiye buuxin kara kaalintaas maadaama ay dadkiisu u midaysnaayeen. nasiib darro madaxweynuhu wuxuu Soomaaliya ka dayacay fursad dahabi ah oo ay ku hogaamin kartay gobolka Geeska Afrika. doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay ku soo beegantay iyadoo ay dunidu albaabada u furtay Soomaaliya ayna miiska saaran yihiin go'aanadii masiiriga ahaa ee dalkeena looga cafiyay deynta, looga qaadi lahaa cunaqabataynta hubka, ayna xud uga noqon lahayd bulshada bariga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waqtiga iyada ah hay'adaha maaliyadeed ee caalamiga ah diyaar u ahaayeen inay maalgeliyaan Soomaaliya. waxay dawladdu ku fashilantay inay la timaado qorshe qaran oo ay Soomaaliya uga faa'iideysan karto fursadahan dahabiga ah oo dalka u horseedi lahaa sumcad diblomaasiyadeed, maalgashi caalami ah, korna u qaadi lahayd dhaqaalaha dalka iyo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed. doorashadii madaxweyne xasan sheekh ee May 15kii 2022 waxay ku soo beegantay iyadoo ay shacabka gobolka Hiiraan oo sharaf naga mudan ay u midoobeen la dagaalanka argagixisada. Soomaaliyana uu ka dhacay ama ka curtay kacdoon bulsho oo looga soo horjeedo khawaarijta. nasiib darro halkii uu madaxweynuhu Soomaaliya uga faa'iideyn lahaa kacdoonkaas bulsho
wuxuu ku mashquulay arrimo lagu muransan yahay oo dhaliyey khilaaf siyaasadeed oo ay ugu horeeyaan dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka dalka, waxaana nasiib darro ummadda Soomaaliyeed ka dhacoobay kacdoonkii shacabka. doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay ku soo beegantay Soomaaliya oo uu ka socdo dib u dhis xooggan, dhaqaalaha dalka oo soo kobcaya, iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo maalgelin xooggan ku samaynaysa dalka. nasiib darro, halkii ay dowladda madaxweyne xasan sheekh dhiirigelin lahayd maalgashiga waddanka, waxay canshuur xad dhaaf ah iyo jidgooyooyin tirabeel ah ku soo rogtay ganacsiyada dalka. waxay ku takrifashay dhulkii dowladdu lahayd, taas oo sababtay sicir barar ba'an iyo dhaqaale darro baahsan, lumisayna kalsoonidii ay ganacsatadu ku qabeen dalkooda, kuna qasabtay in iyagoo rajabeel ah ay hantidooda kala baxaan dalkooda hooyo kuna maalgashadaan dalal shisheeye, taas oo naafaysay ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliya. rajada iyo kalsoonida shacabku waa ruuxda dowladnimada casriga ah. madaxweyne xasan sheekh waxaa la doortay shacabka Soomaaliyeed oo yididiilo iyo rajo badan ka qaba horumarka dalka iyo dowladnimada, iyo qurba joogta Soomaaliyeed oo dib ugu soo laabanaysa waddanka. nasiib xumo, qorshe la'aanta iyo duruufaha qallafsan ee ay abuurtay dowladda madaxweyne xasan sheekh waxay sababeen in qoysas badan oo Soomaaliyeed oo ka niyad jabsan xaaladda dalka ay ka barakacaan dalkooda una hayaamaan dalal shisheeye, taas oo curyaamisay dhaqaalaha dalka. waxay horseeday in dhalinyaro badan oo ka quustay mustaqbalka dalka ay naftooda ku biimeeyeen saxaraha Liibiya iyo badda Mediterranean-ka. waxaana ayaan darro ah in da'yar Soomaaliyeed oo tahriibayaal ah ay toddobaadkan Allah u naxariistee naftooda ku waayeen badda Mediterranean-ka. fursadaha dahabiga ah ee uu madaxweyne xasan sheekh ka lumiyey dadka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaa garab socday khaladaad naafeeyey dowladnimada Soomaaliya. ugu horreyntii waxaa la daciifiyey hay-adihii dowladda, waxaa fadhiid noqday xukuumaddii fulin lahayd howlaha dowladda, waxaana ayaan darro ah in deeq-bixiyayaasha caalamiga ah ay dib uga fikirayaan malaayiin dollar oo loogu talagalay Soomaaliya, maadaama aysan xukuumadda lahayn kartidii iyo karaankii lagu fulin lahaa mashaariicda horumarineed ee laga dayacay dalka, dadka iyo dowladnimada Soomaaliyeed. waxaa sidoo kale magacuyaal ah golihii baarlamaanka ee dheeli tiri lahaa lana xisaabtami lahaa laanta fulinta, maadaama uu guddoonkii baarlamaanku ku milmay madaxtooyada uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh. madaxweyne xasan sheekh waxaa la doortay iyadoo ay Soomaaliya leedahay dastuur heshiis lagu yahay. madaxweynuhu wuxuu laalay dastuurkii dalka ee isaga lagu doortay, wuxuuna tashay dastuur qabyo ah oo aan heshiis lagu ahayn, oo ku jaan go'an damaciisa siyaasadeed iyo danihiisa gaarka ah, taasoo dhalisay khilaaf hor leh, dhaawacdayna midnimada dalka iyo wadajirka ummadda, mustaqbalka Soomaaliyeedna gelisay hubanti la'aan siyaasadeed. sidoo kale madaxweyne xasan wuxuu bedelay sharcigii doorashooyinka, xeerarkii xisbiyada iyo guddigii doorashada, wuxuuna samaystay shuruuc doorasho oo aan heshiis lagu ahayn kuna tolan damaciisa siyaasadeed. waxaana nasiib darro ah in maanta goobaha waxbarashada iyo suuqyada magaalada Muqdisho laga qafaalayo dadweynaha, qasab iyo qoray caaradiisna lagu diiwaan gelinayo. madaxweyne xasan sheekh waxaa la doortay iyadoo uu dalku leeyahay madasha wadatashiga qaran oo looga tashado aayaha iyo masiirka dalka. nasiib darro,
madaxweynuhu wuxuu kala dhantaalay madasha isagoo colaadiyey Puntland iyo Jubbaland wuxuuna ugu dambeyntii burburiyey madashii wada tashiga qaran oo ku bedelay urur siyaasadeed uu isagu gudoomiye iyo musharax u yahay madaxweynaha waxaa la doortay iyadoo ay madaxda dawlad goboleedyadu haystaan muddo xileed sharci ah madaxweynuhu wuxuu qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada siiyey muddo kororsi jeebkiisa ah oo baalmarsan dastuurka shuruucda dalka iyo dhaqanka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya taas oo dawlad goboleedyada u horseeday hubanti la'aan siyaasadeed intaas waa isdultaagii fursadihii lumay iyo khaladaadkii la soo kordhiyay walaalayaal 3 sano iyo 16 maalmood kadib doorashadii madaxweyne xasan sheekh waxaa maanta halis ku jira jamhuuriyaddii saddexaad ee Soomaaliya waxaa halis ku jira dimuqraadiyaddii curdunka ahayd ee waddanka waxaa halis ku jira midnimadii waddanka iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxayna nasiib darro dunidii ka sii quusanaysaa dawladnimada Soomaaliya 349 maalmood ayaa ka harsan muddo xileedka madaxweynaha waxaana hubaal ah inuusan muddada uga harsan muddo xileedkiisa ku sixi karin wixii uu dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka khalday